kulanti waxaan u haboon idin lahaantii ma khiyaarta meel kasta duunida ka joogtaan iyo waqti walba aad daawansaan halkeen waa channelkeena diinta wararka fadlan aad ku xusubtaan soo booqashada koobaad tahay si xushmad leh waxaan kaaga codsanaa inaad subscribe saarto kambeelkana furato si ay ku soo gaaraan fiidiyoda xisaab badan ee halkaan soo gelino haddii aad hore subscribe saartayna fiidiyowga like saar siina share gare aad iyo aad u mahadsantahay walaal u dambeeyay waqtiyada dambeeyay waxa la xamariyo baraawo bulshada booyo ili wareedii waxay sheegayaan in fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani 2020 baraawo bulshada aad u haystay YouTube-ka ayaa la sheegayaa in lagu xidhay magaalada Hargeysa markii uu ka soo degay madaarka Cigaal International Airport taas uu tagay Garowe waxa loo maleynayay in uu tagay safar baasaboor iyo waxaas maalin dhowtana saas u sii fogeyn ayaa gabadhiisii Nasiib Sooraan ayaa duushay oo xaflad weyn u qabtay Nasiib Sooraan oo dib ugu noqotay wadankeedii Ingiriiska ayaa la islaas fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani wadan halka Garowe waxa uu tagay si uu gabadhiisa uga tago oo uu soo qaato baasaboor khamiistina dhaaftay ayaa ahayd markii Cigaal International Airport ay kasoo degeen kooxdii jilayaasha ahaa ee Ismadhaanto kuwaas oo 2 saacadood Cigaal International lagu baarayay xaalado kala duwan ayaa la sheegayaa wararka ku sii daray maanta in iyagana dib Muqdisho lagu celiyay fanaankan caanka ah Qamar Suugaani ayaa hadda ku xiran saldhigga masallaha waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto kambeelkana furato si ay ku soo gaaraan wararka ka soo kordha xiritaanka fanaanka caanka ah way ku soo dhaweyn doonaan bahda diinta wararka on hubnaa maya kuma oranayaan inoo dub hooyada baan oranay angal dambi angal hore wada xaq hore tago sida ku wada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدي السلام يا أصحاب تقالقة هكذا نشوفنا وعقال إنترناشنال إيربورت وحمات كسر دقيقة لبيه طبعا كي دورنا ما كي هاي تيم اسمدانتو كدبنا مركي يساوي سود دقيقة لبصة عضوضة يلي جوا يستيقظها حارات باريس ودد anyway markii dambe dhalinyaradi soo dhaweynay Soodan iyo jilayaashii dhamaantood YouTuberadii wadi ka arkayaalkii wada socdaan anyway dhamaantood baa adigu waa la wada xiray waana xiran yihiin sabab alaaliye sabab ay ku xiran yihiin xataa aan inta qof halka maraya midna ma oga xaalada caafimaad hayda sidoo kale waxaan soo gaarsiin inay bilaa baasaboor ahaayeen aqligana ma galaysa dad dhan oo diyaarad saarnaa oo soo socday ayaa bilaa baasaboor ahaa دمشق تهريب كمان وجينو ليبيا من مودي مدة لبعض ده ودليرة مواطنين أو رئيس سومالينا ودليرة سومالية ده أو تشيليالا الكودية فهم الكودي وما طلنا يكون على عدة وتجنا وبتكود السداي واركان ونسوا دويان هذا بيوضح الشيء كما قناعينه كينيا يجنا runtii halkaas ka hooleeleen ayagoo runtii wada murugaysan calooshuna ay xanuunayso insha Allah waxaan rajaynaynaa in la soo deyn doono wixii fikriya aragtiyaan xaqoosa nugula wadaagi doontaan saaka 5tii subaxnimo ayaan u nimi dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliya oo dhan cid kasta wale bahdii saxaafada bahdii jaajilaysiga macnaha looma kala xarin reesayriye maxaad leedahay waxaan u leenahay kamarada xagga naga xasuuso waxaan u leenahay wixii ala ka dhacay waa ka xun sax lama midun baa noqon sax fanaaniin baa la maray jilayaashii maanta maras waa sax maanta dad jilayaala aan Soomaaliya ka yimid Nairobi ka yimid waa la xidha sax waliba dawladda dhaxaa haysata sax marka lama midun bay noqon